gudaha magaalooyinka Burco iyo Hargeysa. waxaana taasi ay sababtay in jahawareerkii ay ka qaadeen xabadii iyo dagaalkii qaraana ee ciidamada SNM in ay ku weysiisiyaan. waxa ay ciidamadaasi rajiimku ay micinsadeen burburinta iyo baabiinta dhammaanba hantidii shacbiga reer Somaliland ee isugu jiray qaybaha kala duwan ee dhismayaasha magaalooyinkaasi. sidoo kale waxa ay cagta mariyeen oo ay xasuuqeen dhammaanba dadkii ku sugnaa magaalooyinkaasi waaweyn. ha yeeshee arrintaasi may noqon mid wax ka beddesha go'aamadii adkaa ee SNM ay u qaadatay in ay hilfaha u laabaan gebi ahaanna ay meesha ka saaraan ciidamadaasi. sannadkii 1991 waxay ahayd wakhtigii la gaadhay guushii ugu dambeysay ee SNM ay kaga adkaato taliskii Maxamed Siyaad Barre, waxaana magaalada Burco lagaga dhawaaqay la soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. dowladdii ugu horreysay ee la soo dhisay ee uu madaxweynaha ka ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur waxa uu mudane Maxamed Kaahin Axmed noqday wasiirkii gaashaandhigga ee dowladdaasi, waxaanu qayb weyn ka ahaa dib u dhiskii iyo nabadeyntii dalkan Jamhuuriyadda Somaliland. دفاعها ومحمد كاهن دينته عدالته واسمه أحمد إسماعيل عبدين كنعسك يوجده وداعي محمد يوسف العامل حافظاتكم يشغلوه وأمين إليه. sannadkii 1991 22 bishii May waxaa magaalada Burco lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo mujaahidiintii u shahiiday dalkan Somaliland gaar ahaan gudagalkii magaalada Burco. sidoo kalena waxaa munaasabadaasi ahayd xuskii maalintii gudagalka, waxaana ka mid ahaa mujaahidiintii halkaasi hadallada taariikhiga ah ka soo jeediyey mujaahid Maxamed Kaahin Axmed. maalintani waxay ka mid ahay maalmihii aadka u adkaa ee soo maray guud ahaanba halgankii uu soo maray ururka SNM. way jirtay maalmo badan oo ka adkaa oo ururkani uu tallaabooyin noocaas oo kala qaaday. waxaa ka mid ahaa markii dagaalka ballaadhan ee gudagalka la soo qaaday 1984 dabayaaqadiisii. waxaa ka mid ahaa dagaalkii ballaadhaa ee gudaha lagu soo galay. taariikho badan oo noocaasi kii Mandheera ka mid ahaa, kii Birjeex baa ka mid ahaa. marka ugu horreysa dagaalkii la soo qaaday 27kii May waxaa runtii aan ugu hambalyeelayaa ciidamadii ururka dhaqdhaqaaqa waddanka Soomaaliya. 22 May dagaalka la soo qaadayay waxay ahayd waqti aad ciyaari u ah oo aan wada garanaysaa in xaalad siyaasadeed ay ka bilaabantay geeska Afrika oo heshiis ay wada yeesheen dowladdii uu madaxa ka ahaa Maxamed Siyaad Barre